Mareykanka ayaa kordhiyey duqeymaha uu ka fulinayo ee gudaha Soomaaliya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey oo Mareykanka xoog sare u qaaday duqeymaha uu ka fuliyo gudaha Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Washington ayaa xoogga saareysa muddooyinkii u dambeeyey inay ka fuliso gudaha Soomaaliya duqeymihii ugu badnaa ee Geeska Afrika ay ka geysato iyadoo Mareykanka uu xoogga saaray duqeymo lagu beegsanayo Al-shabaab. Shantii maalmood u dambeysay waxaa Mareykanka gaar ahaan taliska Mareykanka uu ku leeyahay Afrika ee loo yaqaano Africom oo sare u qaaday duqeymaha uu ka fuliyo gudaha Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya, Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka ayay si ugu badnaayeen meelaha ugu badan aheyd oo Mareykanka uu ka fuliyo duqeymaha uu ka geysto gudaha Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka jira gudaha Soomaaliya iyadoo Mareykanka wargeyska loo yaqaano Star and Strip ay u sheegtay inay duqeymaha ay kala kaashanayso dowladda federaalka Soomaaliya wada shaqeyn ay la leedahay. Sidoo kale Mareykanku waxay beeniyeen inay hakad ay geliyeen duqeymihii maalmihii u dambeeyey taasoo ay ku sheegeen inaysan jirin wax hakada oo ay geliyeen duqeymaha marka laga soo tago inay jireen howlgallo laga fulinayo ee dhulka oo ay geysanayeen ciidamada xoogga Soomaaliyeed. Dhinaca kalena saraakiil Soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay jireen howlgallo oo dhulka ah kuwaasoo ay fulinayeen ciidamada xoogga Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada kala duwan oo sida gaarka u tababaran oo dowladda Soomaaliya ay leedahay kuwaasoo duqeymo iyo sidoo kale cirka diyaaradaha helikabtarada iyo weeraro dhulka ay ka geysanayeen Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Jubbooyinka